waxay ahayd xilli aan imid isla sanadkaas. Waxaan tagay college-ka waxaana imid bil Ramadaan ah. Xilligaas waxaan jiray 17 sanadood. Waxaana bilaabay inaan soomo markii ugu horeysay ee noloshayda ah, inkastoo aanay Muslim ahayn xilligan. Waxaan dareemay xoogaa awood ah haddaan iskaga tagi karo si xalaal ah cunida iyo cabida. Sidoo kale waxaan iskaga tagay shayada kale, taasaa ii sahlaysay inaan iskaga tago. soonka uu soomay intuusan islaamin ka hor ayaa wuxuu ka qaaday iimaan xoog badan iyo sirtiis inay hagaagto. waxa u fududaaday inuu ka tago qaar ka mid ah xaaraanta kuwaasoo ay caado ka dhigteen bulshada reer galbeedka in ay joogteeyaan. Waxaa bilaabay inaan islaamka wax badan aan ka qaadanayo si aan iskaga tago shayada qaar, taasoo aan aqoonay in islaamka aanay ku banaanayn. maxaa yeelay waxaan isku arkay inaan dhibsanayo. sidoo kale waxaan dareemay munaafiqnimo noloshayda ah, inay wadadaani sax tahay aan qaadayo wada kale. xaqiiqatan waa wax dhacay 4 sanadood ka hor. xilligaasna da'deyduna waxay jirtay 17 sano. waa soonkayga ugu horeysay aan soomo sanadkaas. fariintani waxaan rabaa inaan u sheego dadka aan muslimiinta ahayn inay tijaabiyaan tijaabadani. waa tijaabo aad u wanaagsan. ilaah subxaanahu wa tacaala markuu jideeyay soonka uma uusan jideynin dhib. alle ayaa xumaan ka fog, dadkii inuu dulmiyo, bani aadamka inuu dulmiyo, iyo inuu ka dhigo kuwa ka taga cuntada. inuu sidaas u jideeyo iska daaya soonkani waxaa ku jira dareen, sidoo kale waxaa ku jira in dadka kale wax la dareensiiyo. wuxuu nadiifiyaa ruuxda, wuxuuna saafi ka dhigaa caqliyada. في رحمه تحلو الحياة شوقا